Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadweynaha daawani doona barnaamijkan aan kaga faalloonayo ilbaxnimadii muddo haatan laga joogo 4,700 sano xidhiidhkii u dhexeeyey waddanada maanta geeska Afrika ku yaalay Jabuuti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya iyo qayb ka mid ah Yamanta laysku oran jiray the Puntlands. marka luqadda Ingiriiska lagu hadlayo the Puntland soo galaysa laakiin the Punt baa la oranayay. haddaba the Punt maxay ka dhigan tahay? Punt markii la turjubay luqaddii hore ee lagaga hadlayay masaarida ee dowladihii maaragtay boqortooyadii faraaciintu ay xukumayeen, waxaa dhulkan loo yaqaanay dhulka barakaysan sida Jabuuti, Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. marka maapka maanta Jabuuti la eego, Ethiopia qayb baa ka soo galaysa, Soomaaliya qayb baa ka soo galaysa waqooyiga Soomaaliya, Yamanta qayb baa ka soo galaysa, Eritrea way soo wada galaysaa, Jabuutina way soo wada galaysaa. markaasi waxa weeye dhulkaasi isku soo wareega waxaa la oran jiray Punt baa la oran jiray, oo macnaheedu yahay dhulkii barakaysnaa, qaarkoodna ay u fasireen dhulkii ilaahiyada. markaasi waxaa jirtay ilbaxnimo qoto dheer. sababta maanta aragtida aan uga duwannahay Afrikada inteeda kale saameynta ay ku leedahay, waxaa jiray isku dhexgal baa jirayay iyo baac-mushtar u dhexeeyey dadkii xaggan deganaa dalka Masar maanta loo yaqaano ee masaaridii hore iyo boqortooyadii faraaciinta iyo xidhiidhka u dhexeeyay dadka geeska Afrika. haddaad aragtid waxaa jirtaa meel Aswan la yiraahdo oo Masar ku taalla oo dadka degani u eegyihiin dadka geeska Afrika. markaasi waxaa jira xidhiidh inta badan masaaridu way qarisaa oo kama hadasho Punt, iyadoon baa iscajabisay, waayo haddii ay ka hadasho ilbaxnimada Punt iyo xidhiidhkii u dhexeeyey masaarida iyo dhulka maanta geeska Afrika loo yaqaano, waxaa imanaysa in waxyaabaha ay ku faanayaan ee ansaarta ee maaragtay qadiimiga ay haystaan, waxaa dhici karta inuu dhulkan ka yimiday, ama se dadkaasi xaggaasi iminka dadka arkeoloogu ay faqaan ee ansaarta ee maaragtay waxyaabaha qadiimiga ee maanta tourismiga adduunka oo dhan looga imanayo inay iyagu originally ay lahayn oo dadka geeska Afrika ay lahaayeen iyaa imanaysa. marka way daboolaan oo kama hadlaan. waxaa looga baahan yahay dadka aqoon-yahanka ee geeska Afrika u dhashay ee Eritreaanka ah, ee Ethiopiaanka, ee Jabuutiyaanka, ee Soomaalida ah, ee Yamanida, inay baaritaan xoog leh ay ku sameeyaan dhulkan. waxaa baac-mushtar baa jiri jiray, qaari baddaa bay soo maraysay ilaa geeska Afrika imanaysay, qaarna dhulkay soo mari jireen iyagoo Suudaan soo dhex maraya oo dhanka Ethiopia iyo Aksum ka soo galaya xaggaas, iyagoo ku soo dhacdo dhulka loo yaqaano the Punt. caasimadeedu waxay ahayd intan waxaa la ogsoon yahay inay Zaylac ahayd iyo inay Jabuuti ahayd, eriyadaas bay ahayd. markaas maadaama dhulkaas oo dhan Punt la oran jiray, waxaa maaragtay oo loo soo safri jiray waxyaabaha laga soo doonanayo ee xaggan laga helaynin. waxay ahayd waxyaabaha maaragtay laga sameeyo uunsiga, waxyaabaha laga sameeyo malmalka, waxyaabaha laga sameeyo maaragtay bunka
waxyaabaha laga sameeyo maaragtay milixda. Milixda adduunka ugu ballaaranna, milixda labaad ee adduunka ugu ballaaranna inay Jabuuti ku taallo, oo leeg idiloo milix noqday, oo bad idiloo milix noqotay. Xaggan Jabuuti Lagasaal ku taalan way iman jireen. xaggana fooxa loo soo doonan jiray, fooxa iyo geedo badan oo inagu maanta aan dee baaritaan lagu sameynin oo run ahaantii usoo safri jireen ay u iman jireen, waayo wax bilaa macnaha uma imanayn. wax weyn baa xaggan ka yaalay oo maaragtay dee oo baayac musharku baddana wuu maraayay, dhulkana waa u maraayay. marka waxaa jiri jiray boqor la oran jiray boqorkaasi iyo iyaku dee luqadaha markaa lagu hadlayay faraaciinta ereyga fircoon la yiraahdo, markaa luqadooda lagu turjumo wuxuu u dhigmayaa sida maaragtay suldaan iyo ogaas iyo boqor iyo waxaabuu u dhigmayay. markaa waxaa soo martay dalka masaarida ilaa maaragtay 8 boqortooyo. 8 boqortooyo dadka inta badan mid quraatoon bay yaqaaniin, oo ninkaasi waxaa la oran jiray Ramsi. waa ninka ilaahay sheegtay ee waagii nebi muuse uu noolaa ay wada kulmeen. faraaciinta intooda badani ilaah may sheegan, laakiin mid quraato oo Ramsi la yiraahdo unbaa ilaahay sheegtay, oo isaguna dagaal ku qaaday ilaa dhulkan oo dhan. markaasi waa kii dee ilaahayna rogay. habase ahaatee waxaa jirta intii kale ka horeysay, intii ka dambeysay boqortooyadii faraaciintu badankoodu waxaa sida la sheego cadceedday caabudi jireen, cadceedda. oo maaragtay sida la sheego dadka maaragtay historiyaanka ee maaragtay taariikhda waxay caabudi jireen cadceedda. ilaa uu nin keliyaad oo faraaciinta ka mida uu sheegtay ilaahay buu sheegtay. markaasi magaciisa runtuna wuxuu ahaa Ramsi. haddaba ninkaasaa joojiyey baac mushtarkii u kala dhexeeyey geeska Afrika iyo masaarida ayuu mamnuucay. wuxuu mamnuucay muddo gaadhaysa 60 sannadood, oo markii uu dhintay ayay maaragtay gabadhi la wareegtay, gabadh baa la wareegtay oo maaragtay boqortooyadii qaaday. waxaa la oran jiray Hajatsan baa la oran jiray. sida raggii u labisanaysay, jaranaaladii iyo dadkii sarsare oo dhan bay dumar ka dhigtay. waxayna furtay maaragtay bacmusharkii u dhexeeyey geeska Afrika iyo dib u furtay. markaa waa markii ugu horeysay. markaa waxaa yimid 3,500 oo ciidana ayay Hajatsan ay u soo dirtay geeska Afrika, iyagoo la socda 5 dooniyood oo waaweyn. iyagoo la socda iyay maaragtay u soo dirtay geeska Afrika. markaasi waa markii ugu horeysay ee adduunyada ay ka dhacday geedo inta la qaado, sida geedka fooxa oo kale, inta la qaado oo xididada loo jaro lagu beero Masar. marka markii la tix raacay ee maaragtay la daba gurayna waxaa jirta maaragtay in la raadraaca dadka taariikhdu raadraacay baadhaan. marka masaaridii hore geedaha goynaysay, geedka maaragtay dee fooxa oo kale amba geedaha markaasi iyagu danaynayeen, xididka loo jarayay, dabadeedna ilaa Masar baa la geynayay. xaggaasay ku beeranayeen si usoo noqnoqon oo geedkaasi uu dhulkaasi uga baxo. markaasi Hajatsan
waxay soo dirtay dhulka maaragtay maanta Soomaaliya, Jabuuti, Eritrea iyo Ethiopia loo yaqaano. waxay u soo dirtay ciidan gaaraya 3,500 oo gaaraya oo waxay saarnaayeen dooniyo 5 dooniyo oo kala gaargaara ayay saarnaayeen. markaas bay yimaadeen dhulkan geeska Afrika. waxay dhulkaasi ay maamulayeen muddo aad u dheer oo gaaraysa ilaa 2,000 oo sannadood. iyaga dhulkan maaragtay maanta Soomaaliya la yiraahdo, waqooyiga Soomaaliya, Jabuuti, Eritrea, Ethiopia, dhulkan maanta la yiraahdo oo dhan iyo qayb ka mid ah Yamanta iyaga maamulayay. gabadha boqortooyada la wareegtay Hajatsan markii isdhexgal baa yimiday, qaarkood xaggan bay u soo guureen oo iska degeenba. qaarkoodna intay xaggan ka socdeen geeska Afrika masaarida tegeen ay tegeen. marka waqtiga laga hadlayo waa 4,700 oo sannadood weeyaan. waa Nabi Ciise hortii weeyaan, waqtigii Nabi Muuse uu jiray. iyo qaarkood xaggan intay ka socdeen xagga ay tegeen Masar, qaarkoodna xagga intay ka yimaadeen soo degeen geeska Afrika. waa ta keenaysaa dadka geeska Afrika ku nool midab ahaan inay ka duwan yihiin Afrikada inteeda kale, inay ka duwan yihiin aragtida marka la eego, timaha marka la eego, sanka marka la eego. isdhexgal baa jiray. waxaa jiri jirtay boqorad la oran jiray Nefertiti oo iyadu waxay guursatay nin fircoona oo maaragtay faraaciintii ka mid ah oo la oran jiray magaciisa Akhenaten. marka gabadha Nefertiti ee maanta quruxda badan leh ee meel kasta lagu soo qoro ee adduunyadu ay ka hadasho, ee maanta la hayo sawiradeeda meel kasta ay ku taswiran yihiin, waxay guursatay Hajatsan. markay geeriyootay waxaa la wareegay boqortooyada oo la wareegay nin la oran jiray Akhenaten. madara waxaa la Tutankhamun ayaa la wareegay. Tutankhamun markuu la dhintay haddana Akhenaten nin la oran jiray, boqortooyadu isbedeli jirtay, ayaa maaragtay Akhenaten wuxuu guursaday gabadh xaggan ka timiday, geeska Afrika ka timiday. gabadhaasi waxaa la oran jiray Nefertiti, because taariikhda masaaridu waxay sheegaysaa Nefertiti hooyadeed iyo aabaheed iyo qoyskeega lama garanayo. dadka masaaridana way ka wada qurux badneed. markaasi waxaa taariikhdii markii la daba galay waa isdhexgalkii dadkii xaggan intay ka guureen xaggan u tegay, qaarna intay xagga ka soo guureen xaggan ay u soo guureen. iyaa maaragtay ay tilmaamaysaa. markaasi waa taariikh masaaridu ma jeclo in taariikhda laga sheekeeyo, waayo waxyaabahay maanta ku faanayaan iyaa lala sheeganayaa oo dee waxay noqonaysaa dhaxalka ay maanta ay ku faanayaan iyo dhulkan pyramidka ee la dhisay iyo waxyaabo qaarkood baa lala yeelanayaa, taariikhtii baa lala soo galayaa. even xitaa filimaanta la matalayo ee faraaciintii waayadii hore laga matalayo, dad caddaana iyaa laga matalaa, dad caddaana. run ahaantii markii la eegay ee maaragtay waxaanay mami la yiraahday ee maaragtay marka qofku geeriyoodo ee la marinayay waxa oo dhan xaggana laga soo qaadi jiray. dabadeedna waxaa maaragtay xaggana lagu isticmaali jiray. weli hadda wadanadeena hadday noqoto Ethiopia, Soomaaliya, Eritrea iyo Yamanta, wadanada geeskan Afrika ku nool weli may baarin ansaarta ku nool. maaragtay marka dib loo noqdo ansaarta marka waxa weeyaan 5,000 oo sannadood, 4,000 oo sannadood dhulka baaritaan laguma sameyn, qabuuraha iyo dhulkii hore maaragtay dadku markay sheekeynayaan
magaalada zeylac baa ugu da-dheer oo daasina waxay jirtaa 900 oo sannadood. magaalada harar oo maaragtay magaalada zeylac oo 1000 sannadood jirta, iyo magaalada harar oo maaragtay 900 oo sano jirta, oo intaabaaba ugu da-weyn dadku ay hayaan. laakiinse 4700 oo sannadood wixii jiray xaggan, wax maaragtay dowladihii soo maray amba Ethiopia ha noqoto amba Eritrea amba Soomaaliya, wax baaritaan ku sameeyey ma jirto. oo maaragtay marka ansaarta la baarayo khubaro waaweyn baa loo yeedhaa oo Maraykan iyo Europeana oo iyagu baara. dadkii gumaystahana inay wax ka qaateen lama ogo, inay wax gurteen lama ogo, inay balse maanta in la baaro dhulkaasi maadaama agu jirto xaggani, waxay iska dhici kartaa dad masaaridii hore xaggan, dadkii masaaridii ee maaragtay boqortooyada qaarkood inay xagganba ku geeriyoodeen baa iska dhici karta, oo xaggan lagu duugay oo lagu aasay iyaa dhici karta eriyadan inta u dhaxaysa geeska Afrika. markaa wax weli baaray ma jirto. markaas markaa taariikhdan intaasaan kusoo koobayaa. waxaanan ka warrami doonaa magaca Jabuuti sida uu isku bedelay. markii hore Punt u ahayd, dabadeedna Jabuuti u noqotay, dabadeedna markuu Faransiisku uu qoray Jabuuti buu qoray. waayo marka uu Faransiiskii markuu sidan u qoray Jabuuti, magaaladuna ahayd Jabuuti, dhulkan oo dhan Punt loo oran jiray. raadraac baa jira meeshaas ereygaasi. markaas waxaabad ka soo qaadaa nin Faransiis ah haddii uu maanta Jabuuti kugu yimaado, uu ku yiraahdo magacaa, uu ku yiraahdo ood ka tiraahayd magacaygu waa Khayre, dee Khayre ma qori karaayo, laakiin Keegay buu qorayaa. markaa khaladku Punt iyo Jabuuti wuxuu isa soo bedelaba Faransiisku Jabuuti sidii isaga la saxsaneed ee u dhib yareed buu qoray. markaasi waa sida dee ninkii gumaysta ahaa ma karayo inuu khayre inuu qoro, laakiin Keerey buu qorayaa. Keerey dee markaasi waa maaragtay sidii saxda ahayd maaha. markaa Faransiisku Jabuuti waa sida uu isagu doonay inuu qoro unbuu u qoree, laakiin sideeda dhabta maaragtay diida lama akhriyo, waa silent. warkaasi luqadda Faransiiska diida lama akhriyo, waa silent. waxa weeyaan Jabuuti xaggana maaragtay waa dee waa sida saxda ahayd oo ka soo guurtay Punt. marka sida Faransiiska iyo Ingiriisku u leeyahay erayo qadiimiya, iyo af Soomaaliguna u leeyahay erayo qadiimiya oo la isticmaali jiray 4000 oo sannadood, dhowr boqol oo sannadood la isticmaali jiray intuu Faransiisku iman, iminkana la isticmaalo. markaasi xaggaasi raadraac baa jira. tani kale aan ka soo sheekeeyey storigaasina inay dowladaha dariska ee maaragtay hadda Ethiopia iyo Soomaaliya iyo Jabuuti ay isku tagaan ay baaritaan weyn sameeyaan ayaa loo baahan yahay, oo waxyaabo badan oo taariikha ku duugan xaggan. marka ay masaaridu ay ka sheekeynayaan kuma dheeraadaan, haddaad weydiisid unbay ka hadlaan, laakiinse maaragtay ilbaxnimo iyo ganacsi iyo maaragtay taariikh weyn baa ku duugan geeska Afrika iyo masaarida. intaasaan kusoo koobayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.